بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان بأصحابتي قيمها قايها هي قدرين تونا جنبنا كسر دوادا برنامج كيران دي كديارناي هولها سحر بر خاصة على قبل كتقدر يسيب ولي بديوان قلنته الشعب كرير تقدر يسكت ديوان قلنا ينقبها خرق على الشلا سيبه وحن حوق صار دونا برنامج كيجنا تيردا ugu eegi doona sixir bararkan ka socda gobolka Togdheer iyaga shacabka reer Togdheer dhamaan bay isla qaateen inuu halka dollar marayo 10 kun oo laana halka $100 ka marayo milyan barnaamijkan waxa idin socodsiin doona aniga Axmed Jaamac Aadan Axmed Digiro iyo Cabdullaahi Xudayfi oo dhanka kamarada waa kan barnaamijkii daawasho wanaagsan sixir bartaana ku doorashada dawladda dumarka Togdheer waxaan u cadeynay Soomaaliland madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo golaha guurtida u sheegayna iyo nimanka sharaxan halkii dollar ba 10 kun ashir nagu maraaya waad aragtaa halkaan u fadhino waad aragtaa waxaan u iibinayno 700 kun waxay inaga heleen ma jirtaa bayra waana salaamayeen inamada maxay toole kamarad qaadayeen inamada maxay taawariyaashna way salaamayeen أنا اللي هذا مقعي شافعي محمد عيسى ضرب وحي مقعي جي موقعي يقارن وان سلامية آدي آد بان سلامية إن قارهم وحسي سلامية شغالها إن تفيقة أريل نوان سلامية آد بان سلامية وحنو لنا هاي وحنو عنو قال إنه ودن كده سحر برا بحسن أيا كداعي عبارتين رافتي عبار ده كحن بعد ده شرتوي تي لهين قدر القاضي ميت قدر ما شرته waxaan sababa taas dawladda u sababa waxa weeye commissionku doorashooyinku waxa la keenay jiray doorar baa la keenay jiray bariga hore sidaan ku naqaanay doorarkaas ay namada la siiyaa shaqaalaha doorarkaas dalka soo gala bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Ilyas Axmed Hurre kana tirsan sariflayaasha gobolka Togdheer gaar ahaan Burco hadaynu ka hadalna mawduucaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan sixir bararka iyo lacagta dalku sida uu qiimo dhacday marka hore waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin sarif la wax kiciya sarif la xon bakciyo waxa weeyaan dadka shaqada loo igmaday hadii qaban waayaan gudoomiyaha bangiga iyo wasiirka maaliyadda Samson Cabdi Aadan shaqadii loo diray may qaban waxa weeyaan gudoomiyuhu inuu wixii shaqadii loo diray ay sida tahay u qabto lacagahana marna laan baa la soo daayaa marna dollar baa la soo daayaa isagoo wuxuu soo daayaa walaan laantii markuu suuqa ku soo daayana sicirka uu kacaya dollar haduu laakiin dollar ku soo daayo sidii loo igmaday uu dollar soo daayo dollarkii uu jabaya imika commissionka waxa la siin jiray commissionka dollar deedna hoos buu dhici jiray oo 700 buu gaari jiray 750 imika triibkan laan buu soo daayay waa laan taablag moorka weey ninka waagi bariba taa soo deynaya dollarka jabaya waxa uu ka imanaya maciishada qaali bay noqotay anagu ganacsatadii waxaanu nahay magaalada Burco suuqa fadhiday waxa weeye waxa loo sheegayaa dawladda inay magaaladii dadkii masaakiinta ah inay baqti ku jiraan in wax alaaliyo wax la qabanayo xoos soo eegaya midnaanay jirin inuu nin waliba adduunka baashiisa uu balagoosanayo in wax alaaliyo wax dadka loo danaynayo hodana oo jirtaanay jirin in maxay hayday mid waliba uu leeyahay dantiisa uu ka fuur yeelanayo wax wadanka ka jira iyo wax dhiba iyo wax la qabo midaan war u haynin ayaan u sheegnaa dawladda waxa weeyaan dollarkii hawada ayaa laga saaray qadka ayaa laga saaray masaakiintu way baqtiday waxaan ku ni magaaladii $2 $3 haday tahay $1 baa si wareegle $2 ee kale dhulka yaalaan labada dabaqadood ku haynay waxaan ka hadlaynaa wixii aanu iibinaynay way kala waceen leena waanu iibinaa dollarna waana laga soo iibiyaa dawladdiina waxay ka qabatay haba yaraatee dad baa lacag soo samaystay dollarkiina u qaal garaysay oo shan ku soo samaystay marka waxaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan kaga hadlayaa waxa la yiraahdo sixir barar nama haye waxaan nahayo wax la yiraahdo sarif barar wax la yiraahdo waan nahayo dollarka waqtigiina maryanka maraya waxaan u sheegaynaa 24 saacadood waxa jira dawladdeena Soomaaliland marka ugu horeysa waa mahadsan tahay
marka xigta madaxweynaha iyaga aanu jecelahay maxamed axmed siilaanyo aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaase jirta madaxweynuhu waa odaygii reerka waxa reerka rogay oo dawladda rogay islaamihii reerka islaamtu maxay tahay waa ragga maamulka uu dhiibay ilaa isagu odaygii reerko maamulka guud buu leeyahay hadduu tagay imaaraadka qabtay iyo hadduu adduunweynaa maro ragga mas-uuliyiinta ee uu kaga tago dalka ayaa waxaan ku yidhi dalka ka mas-uula iyagana waxay bilaabeen inay kaambay bilaabaan iyo xisbi iyo sixirbararkan saameeyey bulshada waxa weeye sixirbararku horta iminka bulshadu muddooyinka u dambeeyey aad kor buu u kacayay xukuumadduna marba waxay ka qaadaysay tallaabo haddana waxaad mooddaa inuu muddooyinka u dambeeyey marka tallaabo laga qaadaba uu sii kordhayey markaa horta sixirbararku iminka $100 wuxuu ku dhow yahay 1 milyan waxa uu kaloo saameyn ku sameeyey sixirbararkanu shaqaalihii dawladda ee qaadan jiray mushaharka laanta ah ayuu wuxuu dhimay qofkii $100 qofkii milyanka ku shaqayn jiray mushaharkiisu wuxuu noqday $100 $100na waxa weeye maanta dee baloodhkii kiradiisii ma dhama waxa weeye markaa waxaan leenahay horta waxaan ra'yigayga soo jeedinayaa inay dawladdu xakamayso dollarkan yacni sacaga waxaa la yidhaha jaamac maxamed maxamed ku magac dheer hindhiso madaxweynaha axmed maxamuud maxamuud siilaanyo marka uu doorashada doonayay wuxuu lahaa waxaan dhimayaa cashuurta iyo sixir barar uu dhimadaayo kor buu u sii qaaday dawladdiisu sanad walba waxay leedahay miisaaniyad sanadeedku waa intaa miisaaniyad sanadeedka la sheegaya waa maxay waa cashuur la kordhiyey sidii qawta daruur la cunaayo bilaadankii wax keenayay cashuurta marka lagu kordhiyo xaggee bay fuulayaan dee bilaadankanay fuulayaan dawladdu waxa ma keento dawladdii jaraal maxamed siyaad barre waxay keeni jirtay boosha cadde saliid wax walba way keeni jirtay taani waa dawladda wax allaale waxay sixir barar kula dagaalanta ma keen haddaba garad sanadkii walba waxay leedahay miisaaniyad sanadeedku waa maxay waa intaa markaa miisaaniyad sanadeedkii markii de qofkii waxa la keenaya cashuurtii lagu sii qaado dee tanna way sii kordhinaysaa sixir barar markaa sixir bararka dawladda ayaa ka dambaysa waa inay doqoni qufacda baan idhi meelsan ogi